السلام عليكم أصحابتي خالية وأين السلام مركز أدوك joogtaan waxaan rajeynaa walaalahay quruxda badan inay caafimaad qabtaan soo sida arkaysaan caaw iyo rutiinkeena insha Allah afur fudud oo kaaliska aragay oo inaba caadi ahayn ayaa nooga soo tuuray waxaa waa waqti hore ayaan isku keen dambeysay waayadan waa mashquulkii aad iyo aad ayuu u tiro badan yahay walaahi mashquul adduunya ilaahay noo fududeeyo ma fahanteen waxaa xaaladaha caadi maaha soo sida arkaysaa meesha intaan jikada soo galin ka hor ayaa waxaan soo marsay maaski wuxuu ka kooban yahay malab sokor iyo kafee insha Allah waa dead skinka ama maqaarka dhinta ayuu wajiga ka saarayaa inaba caadi maaha soo sida arkaysaa meesha waxaa shaqadii ayaa ka fikiraya iyo howsha iyo taalo waxaa ina keena soo meesha waxaan soo saartay digsi waxaan ku soo ritay hilib waxaan rabaa inaan saaro ama aan kariyo bariis iyo hilib anaga hadda Soomaalina bariis iyo hilib nagalama waayo anaga famil ahaan qaasatan waxaa waaye xilliga hore baastada aad u jecleen laakiin ramadaanka bariiska ay nooga shidan tahay waxaan kaloo halka ku sameynaya waxay tahay waa digir ayaan qolofka ka dhilayaa ama ka fiiqayaa biyo ayaan ku soo ritay gacanta ayaa saas ku sisinaa waa qolofka si fudud ayuu markaas uga fuqaa maraq yar oo fudud oo afurka afbilawga lagu cunayo insha Allah waa bariiska laguma afbilaaban karo maraqa aad iyo aad ayuu u fiican yahay suubka ayaan ku sameysan doonaa insha Allah soo maqaarka soo dhan waa ka soo saarayaa saa arkaysaan sidaas ayaa nadiif qurux maasha Allah tabaarakallah ugu soo dhigay maraqan lagama sheekeyn karo aad iyo aad ayuu u fudud yahay waqti badan kaama qaadanayo isku dardarkiisa dabka ayaa saaraysa hawshaada kale ayaa iska wadanaysaa insha Allah ina keeno maraqan lagama sheekeyn karo waxaan rajeynayaa inaad tijaabisaan soo digsi ayaan soo qaatay halkan digsiga ay dabka soo saartay waxaan ku soo shubtay kale wax yar oo saliid kadib waxaan ku soo darsaday basal iyo toon aan soo fiiqay basasha cad ayaa aad u fiican in lagu darsado maraqan laakiin ani iimaysan oonin markaas laakiin waxa waaye gurigaaga wixii yaala ayaa markaas isticmaalaysaa waayo uma baahnid wax kale suuqiina ka doonto waxaan kaloo ku soo darsaday maraq digaaga ka samaysan khudaarta oo hal xabo ayaan ku soo darsaday iyo qaando yahay shiishid intaas ayaa u baahan tahay kadibna waxaan ku soo darsan doonaa insha Allah yaanyada diyaarsan oo caadiga ah kartoomo ku jiro ama yaanya buurbuurta oo guriga ku taalo kale waa shiidan kartaa soo intaas ayaan isku soo shiilaa kadibna waatan yaanyadiina ayaan ku darsanay maraqan walaahi lagama sheekeyn karo aad iyo aad ay u fiican yahay waxa maraqa loo cunayo afurka waxay tahay xilliga horeeto cuntada inaysan culays kugu noqonin waayo xilli habeen maadaama ay tahay kadib waxaan ku soo darsaday wax yar oo cusbo intaas ayaan soo dhexgelinayaa waxaan ku soo darsan doonaa insha Allah digirteeni aan soo diyaariyay oo qolofta dhan aan ka soo fiiqay waayo digirta muhiimadda waxa waa qolofta waxaan uga fiiqay digirta inay noqoto digir fudud oo hadhow yacni aan qolof afka ka gelin oo kaleeto caruurta waa siisan kartaan halkan waxaan kaloo ku soo darsaday baastada jajaban baastadan way jajaban tahay aad iyo aadna khafiif ay u tahay way diyaarsan tahay dukaamada ayaa ka helaysaan haddii aysan ku oolinin baasta caadi oo guriga ku taala ayaa jajabin kartaa oo ku darsan kartaa muhiimadda waxaa waa un digirtaas soo meeshan waxaa waa digirtii iyo baastadii waan soo biyeeyey kadibna waxaa daboolkiisa dhab ayaan ku siinaa insha Allah maraqeeni inoo soo karay ayaa waxaan sameyn doonaa insha Allah waan ka soo bixiyay saxanka ayaan soo saartay waxaan rabaa ayu xabaash wixii aan soo diyaarsado dhan inaan ku darsado waxaa waa hilibka hay wareerinaa laa ufin kale oo diraa waqtigiisa oo qaadanaya insha Allah saacad ha ku jiro marka horeetana biyo ayaan ku soo karisay arkaysaan waxaan ku soo darsaday xabaash alaala xabaashida ah sidoo kale isticmaali kartaa barbarooniga shiidan xabaash duduub iyo waxaan kaloo soo shiitay basal toon iyo waxaan isku soo shiiday ayu xabaash kaleeto insha Allah gurigaaga wuxuu ku yaalo ayaa isticmaali kartaa soo saarkaysa intaas ayaan si fiican isku soo dhexgelinayaa aad iyo aad ay u fiican tahay in waxyaabaha ay haysato waxyaabaha saas ay tahay ramadaanka waxyaabaha oo xawaajiyada starkiga ama xoog aad ku daran hadhow waxaa laga yaabaa gaas iyo waxaas inay kugu kiciyaan waxaan kaloo ku soo darsaday asagna sidoo kale soy sauce waxay ka caawinaysaa hilibkaaga inuu ku noqdo hilib jilcan oo kaaliska arag oo foornada wax badan aysan ka qaadanin maadaama aan caruur ay cunayso oo aan rabo caruurta inaan qayb ka siiyo saliideeni ayaa inoo soo kululaatay cafwan burka sidaan u qasay idima tusinin waayo waqtiga ayaa igu yaraay aad iyo aad ayuu waqti igu yaraay waxaan isdhaa walaalaha aad maalmaha waa kala mashquusheen
dee waxaa waaye inaad iskeento magaalka ma fahanteen. Insha Allah ramadaanka waxaa waaye gabagabo ciideeni waa inoo soo dhowdahay. Isku diyaarinta ciida, guriga in la diyaariyo, caruurta in la diyaariyo, naftaada inaad diyaarisid waqti ayaa qaadanaysaa insha Allah. Soo burkeeni kuskuuska macaan waxaa waaye bur macaan waaye ayaan saas markii aan soo wada kuusay burkii kalar yar oo qurux badan oo dahabi ayaan ka rabaa insha Allah. Qaandada waa tanaa si fiican ayaa qaandadaas isku dhex gelinaya burka, waayo saliida kor iyo hoos ayaan ugu keenaa ilaa si fiican kalarkaas ugu yeelato. Qaandada kama joojiyo, kalar qurux badan oo maasha Allah tabaarakallah. Saliidana uma baahnayn zaaid inay kaaga kulaato, waayo maxaa la dhahay shakadii kale wuxuu kaa noqonaa burka xoogaa yara madow ayuu kaa noqonaa, aad ayaynu fil daro u tahay. Soo qaybtii koowaad markii aan ka soo saaray haddana qaybtii labaad ayaan kusoo ridayaa. Burka waxaan isticmaalaya xitaa gacanteeda lay ku qiyaasayaa, waayo wax kaleeto lagu qiyaaso kaleeto maanan haysanin. Laakiin kuskuuska insha Allah in isla ekeeyo ayaan rajeynaa. Qof kasta ee qiyaasta u jecel yahay iyo indhihiisa sida qiyaas ahaan uu qabato ayaa wanaagsan inuu u qiyaasto. Maasha Allah tabaarakallah. Kasoo warkeena insha Allah. Burkan waxaan ka qasay hadda afka idinkaga sheegaa insha Allah waa bur xabad ukun ee burka qiyaasta familkaaga ayay ku xiran tahay inta aad sameynayso. Xabad ukun wax yar oo sokor leebito, caanaha garoorka iyo sokor iyo intaas ayaan ka kooban yahay burka insha Allah. aad iyo aad ayuu u fudud yahay burkan, aad iyo aadna u macaan badan yahay. Walaa lagama sheekeyn karo. waxaa afurka ka bacdi koob yar oo qaxwo ama shaah inta aad isticmaalayso ku qaado. caanaha oo macaankan kor kaga darso inaba caadi maaha, lagama sheekeyn karo. Soo burkeeni halkaas ayaa noogu soo dhan yahay. Haddana inta ugu dambeysa ayaan ka saarayaa, waayo familka qiyaas ahaanta wuxuu inta aad tihiin ayay kuley ku xiran tahay burkaaga. Aan wax badan maba isku sameeyaba. Kadib saliideeni haddana waa sii kululeeyay, ma rabo inaan ka dejiyo dabka. Sambuus aan soo diyaarsada ayaan kusoo riday. Sambuuskayga dhan waaba 6 xababa, waa tirsantaa 3 iyo 3 laba qafood ka badan taaganahay. Maasha Allah tabaarakallah. waxaa waaye intaa haysata basareyso yaa adduunya bilbasar alcaaqir waxaa la caaqir bilcamal ma fahanteen. adduunyada basara lagu joogaa, kalif ma jiro. maasha Allah tabaarakallah. soo sida arkaysaan sambuuskeeni kalar qurux badan asagana soo kale noo soo yeeshtay. Sambuuska muhiimadda waxaa waaye inaad qudaarta si fiican ugu shubto, basashana aad iyo aad iskaga yaryareyso. Sambuuskana si wanaagsan inaad u xirxirto. Sambuuska dadka qaar ay sameynayaan hadda aragto walaa waa yaabaysaa. waxaa waaye saliid ayaa ka galayso. muhiimadda waxaa waaye sambuuska inaysan saliid kaa gelin oo si fiican u xirtaa oo saliid aad ka ilaalisaa. waayo saliid markay sambuuskaaga aruurto hadhow waxaa ka qaadaysaa laabjeex iyo waxaas oo dhan ayaa ka qaadaysaa. Sambuuskaagana ma noqonayo sambuus aad iyo aad u macaan badan. soo muhiimadda sambuuska aniga aan saaro waxay tahay inaan si fiican u xirxiro, qudaartana si fiican aad ugu buuxiso. markaas wuxuu noqonayaa sambuuska la iska argaya oo ku dayaayo. Sambuus inuu suxsan yahay umaleysid marka soo saaraysa ma fahanteen. intaas iskala yara kafta ma fahanteen. waxaa waaye sambuuska wuxuu ku xiran tahay qofka inta mar uu sameeyey ama uu badanaa jikada uu ka badan yahay. soo meeshaan saxan ayaan soo qaatay, waxaan soo jarjartay qaraha 2 nooc kala duwan waaye. qaraha cadka iyo qaraha gaduudan anaga naqaano. qarahaas kale cadka waxaa laga helaa maasha Allah tabaarakallah hurdo kaaliska arga maskaxda ayuu u fiican yahay. waxaan kaloo soo saartay canab oo canabka madow ayaan soo dhaqday iyo strawberry ayaan intaas ka kooban yahay insha Allah. waxaan kaloo soo jarjartay liinta aad iyo aad ayaan u jeclahay. wax kasto aan isticmaalahay cunto kasto waxaan jeclahay liintaas inay saaran tahay meesha. soo meeshan waxaa kaloo soo qaatay cabitaankan waxaa waa saft ama yacni biyo yar oo fudud oo biyo kale ku kor dareyso. wax la khasaayo maanta ma jirto. waxaa waaye bacambe la shiishida ay ma jirto. soo maraqeeni kaaliska arag si fiican ayuu isku soo dhexgalsa arkaysaa. hadda waa inoo diyaar. waxaan si fiican usoo jarjar waxay tahay kabsar caleen aad iyo aad usoo xoogaha yariis idna kamaana soo dhigin, dhexdhexaad ayaan kasoo dhigay. maraqeeni sidaas ayuu hadda noogu dhan yahay. aad diyaar waa inoo waaye. maasha Allah tabaarakallah. maraqan hadda aad ku af bilaabato wax kale uma baahnanaysid. ishada waxay kugu qaadanaysaa inaa xilli kale cunto. soo meeshaan waxaa waaye afurkeeni ayaan soo diyaarsanay. timirtii, sambuuskii, adduunya qudaarteeni intaas haddii aad haysato miiskaad kusoo quruxsato. waxaa kaloo idinku iloobi saladkaas oo hadhow bariiska lagu cuni doono insha Allah. burkeeni waa kana caana ayaan kusoo kordaarsanay. shaahigeeni, bariiskii, miiska waxba kama maqno. waxaa waaye juusta intaa maxay rabtaa nagta laga gediyo ama la cuno ma fahanteen. waxaa waaye inaba caadi maaha. afur yar oo fudud oo kaaliska arag oo indhaha u roon.
waxaa waa waqti badanna kaama galaysa insha allah. waxaa miiskaaga intii aad haysato gurigaada markaas ku yaalo ku quruxso. maasha allah tabaaraka allah lagama sheekeyn karo, inaba caadi maaha. waxaan rajeynayaa muuqaalka haddii uu idin soo gaaro inaad sheerta iyo laagta noogu saartaan insha allah. haddii aaba intaa nala soo gaarto muuqaalka waxaan idinka codsanayaa waa walaashiin iyo mar kale muuqaal cusub.